kulanti waxaan wanaagsan daawada meel kasta aad joogteen iyo sidoo noo daawanaysaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal qurux badan halkan aad daawanaysaan waa badbaasho fadlan subscribe channelka hadda oo tahay like share comment inta waa laga doonayaa ya kale waa wiilkan okay maanta iyo video cusub waxaa jir biyaan aad ogtiin mid kamid ah culimada Soomaaliyeed loo magacaabo Sheikh Cabdiraxmaan Roble waxa uu dhashay Sheikh Boqorsoon Allah ya raxma ayaa muxaadaradii uu jeediyay oo fariin gudbinaysay ayaa dadka qaar kamid ah dadka waxay u fasirteen simicnaha aan wanaagsaneyn inta wax fahansan ama ilaahay aqliga u saaxiibkeena waa sidii saxdeed ay u qaateen okay waxaa jirta marka youtuber ka soo falceliyay iyo gabdhaha qaar isticmaalay maxaa la baraha bulshada ama siba TikTok-na way ka soo falceliyeen marka waxaan soo qaadanaynaa iyagoo wali si qaab soo falceliyay macnaha waxaan soo qaadanaynaa qaar kamid ah youtuberada Soomaaliyeed oo sida qaldan uu soo falceliyay si xunna wax u fahmay sheekana aflagaada u geystay tantalo asxaabtii maxaa maanta culimada ka galay culimada hadii ma garanaysa xogaa ay birish ka dhacaan ee waa laga hadlayaa waa tusinaha ha macna waxba loo sheegay culimada kama dhacaan horta ma gaf ilaahay laakiin culimada hadduu ninka sheekha ah waxay ka qaldamaan ama mas'ala ka qaldanta yaa sixi kara ninka loo sheekha sixi kara oo dhihi kara sheekh hebel saas ay wax yihiin laakiin adiga ma sixi kartid ma fahanti illa sababta ma fahamsanid ba haddii aad wax fahamsantahay noocan ma aan hadashan si wanaagsan oo soo hadleen because ibn aadan aan wax loo sheegi karin adduunka ma joogo marka bal sheekh meeshan oo xogaa yar wuxuu ku dhagan yahay macnaha wuxuu taageersan yahay sheekhan horta furiinka صح in la furo special ilaahay ka cafi brother sheekha furiin ma taageersan furiinka laba kale furiinka ayaa laba kale tan kale qof kasta way fahmi kartaa sheekhu wuxuu ka hadlayaa macnaha qof kasta aqliga u saaxiib way fahmi kartaa furiinka midka uu ka hadlayaa iyo wax uu ka hadlayaa intaba laakiin adiga ma ahan inaan si dadban u fahantid kadibna adoo wax soo fahmin dadna wax soo weydiinin iska soo fadhiisid si qaldan aad u hadashay markaas cadeeyo in la qabo waa xaraam taagan yahay naagis cadeysay saas mare ha iikay okay qofka hadduu is cadeeyo oo midabkii ilaahay u sameeyay iska bedelo oo wax kale iska dhigo diin islaam ma qabto waxa ay diinta islaam qabinne dad ma ku wada joogi karaan fahamtina balana hadda ka hor waxaa dhacday nin tan kale waxa uu ka batay koobkaas ama uu cabtay macnaha xaraka macnaha adoo wax caadi ka hadlaya ama hees reaction ka bixinaya camal wax reaction ka bixinay brother hees ma ahan waa nin sheekh ah muxaadaro jeediyay dadkiisna la hadlay wax wanaagsan u jeediyay hadda ka hor waxaa dhacday nin gabar guursaday gabadhii waxaa lagu ballamay aeroboor gabadhii way si soo cadayday ninkaana madowgeedu ku rabay sodohdii gabadha soo galbidana way si soo cadayday aeroboorkii lagu ballamaa la isugu tegey ninkii wuxuu arkay gabadhiisii oo moodo roob la dhac ood moodo firinfir god ka soo baxay iyo sodohdii oo ka daranba ninkii maxau sameeyey gabadhii wuu dalaaqay madowga anaa kugu rabay maxaad isu cadayday ma fahamtay sheekadaada gabadh baa nin meelaha qurbaha jooga wuxuu guursaday gabadh wadankii joog anigu waa fahanay laakiin adiga marka hore saa u fahantay noo sheeg marka gabadh hayo wax dhaqso lagu cadaanay dabcan ma jiraan malmay qofku inuu muddo isticmaalo waxyaabo la isku cadaynay marka make up soo martay markuu make up soo maray anu madowga aan kugu rabay maxaa uu dalaaqay ninka hadda gabadhii uu dalaaqay inoo maraysa muxuu ku dalaaqay way sacdeys make up bay marsatay yes odaygu wali ninkii sodogahayna sodohdii oo garaa oo dalaaqay صدقنا هو جوجي صدقنا way soo cadeysay gabadhina way soo cadeysay ma waa horta sheekh ma waalna uu ka nadiifsan yahay wuuna ka fiiyo yahay laakiin adiga baa wax ka qaldan yihiin marka aan saas ku leeyahay horta culimada marka ay hadasho oo diiniin ay ka hadasho
qof caadi ah waxba aqoon ma u jawaabi karo waxa uu jawaabi karo kaliya nin diinta bartay mas'alan la weydiin karo hadduu la qaldamo waa macnaha oo wax ka qaldamaa waxba si ka noqdaan tan kale sheekh wuxuu ka hadlay gabadha ninkan ku soo tashanayay qof sideedii ah qof toban wiigaas ku caday kartaa ninka marka wadan kale ka imaanaya wadan ku soo socdana macnaha laba maalin iyo hal maalin ku imaanaya tan kale in isbuuc ay isku cadayso qofta ay macnaha isku bedesho waxa waa caadiyan wax weyn marka inanka bay far inuu gudanta sidaan filaa labadii wiilkii iyo sodogina meesha ku wada fahmay ana sheekadan laakiin ana waa fahmay sadohda iyo wiilka gabadha guursaday maxaa soo raaciyay sodohda gabadha waxay ka soo waday guriga ka soo waday eelboorka imaatay Soomaaliya oo kale iska imaadeen sodogii iyo wiilkii waa isla socdaan Nairobi isla joogaan eelboorka ugu tageen okay naagtiisa soo cadaysay gabadhiisa soo iska qosla maxaa ku qoslaysa horta waxaa loo qoslaa wax la fahmay marka waxa aad fahantid ama qalad u fahan ama sax u fahan waxa marka aad fahantid ayaad ku qosli kartaa disa oo ark okay labadii marka way talaaqay labadii maxaa okay inta kadib maxaa dhacay marka sheekhow labada nin haddaan garanayo salaama hambalyahan u diri lahaa jannatul yaa u sheegay in mega baxta ma adiga la joogtay ma la arkay horta fiir Soomaalida xukunyan xukunka iska ridayaan waxa adiga ma aadan arkin waxa ay yihiin mega miya ma caawina isku soo cadays qofta jirkeeda ma soo bedeshay warka ma haysa cadays oo la ogyahay hadda gabdhihii inta ay ka gudubtay rag iyo cadeen qofka dumar midabkiisa uu bedelana soo sheer ka hadlay waa macnaha jannatul firdaws Allah geeyay markaas بس الشيخ عايو uga shubtay wallahi ya ambale u dir lahaa waa reer baa macnaha meesha laba reer baa ku burburay just waxa la isku furayna waa make up yar oo la soo marsaday adiga sheekh wax ma u naqdi kartid brother sida xaqiiqada ah waxa qaldan iyo waxa saxda ah ma u sheegi kartid sheekh waa nin wax bartay ilaahay wuxuu dhiibay ummadiisana wax sax ah u sheegay adiga hadaadan wax uu sheekha la fahmin oo wixii fiiri waxa laga hadlayo waa xadiis oo aayad quraan marka adiga waxaad beeninaysaa aayadda quraankeed iyo xadiiska wax loo kaftamay wax laga maxaa laga hadla ee wax maxaa la koob shacab boojo loo soo qaato maxaa la been laga sheegi karin ma aan xadiiska aayadda waa wax maxaa la oo waajib waa in hadii lagu sheego inaad fuliso hadaadan sameyn karin ka aamusto ma ahan inaad ijaafayso سعدين حتى ما ديك ما شيخو keep going horta sheekha waxyaabo badan maartay waxyaabo xaalka xafada uu eegay laakiin sheekhu waxa ka badbadin bash شيخ اسكوالي ما تاغن okay waxaan aqsantiin sheekh dadka xanaaqsan wuxuu ula jeedaa kuwa waxa soo sameey macnaha kuwa israaca kuwa isla tunta kuwa is cadeeyay kuwa falaqda ah dadkii macnaha oo runtu ka sheegay ayaa xanaaqa qaarkoodna way soo wanaagsanaan wax qaladka la tusiyay way ka soo laabanayaan qaarna way xanaaqayaan idig markuu xakameed noqoteen kuwii xanaaqay oo maxaa la sheekh markuu runta idin ka sheegay xanaaqay ayaa ka mid tihiin waan cadeyseen aqoon aan leedahay ilaahay waxa uu ku baray laakiin bac ka sii sheekh si qaldan ha isticmaal aan filaa xilliga waqtiga just hadda joogo qof ay si darsiin makeup is cadeen inaysan jirin marka waxba inay ka qaldan amiin himayni waxaan aqsantii Soomaa هذا محن حلاقي aqsanay because gabdhi gabar walba saacadaysa ma gursinina waan ugu dirtay waxaan aqsanay ما يدي وميك اب waxa lagu furaa tiri gabadh iyo hooyadeed meesha jab yarba kama dhicin geeriba wax ma dhaantaba oo garan lagu furay hadan wax laga naxwo Allahu akbar nimanka gabdhaha is cadeeyay gabadha shaydaanada oo is cadeeyay iyo saddexda shaydaanada waa lagu galaa sababtu waxay tahay diinta islaamka qabto qofta hadii jirkeeda isbedesho ay maxaa la waxyaabaha qaldan ay ku socdo inaa guriga ka buuxa hadii gabadha ay tahay guriga ka buuxsanaysaa qoto is cadeeyay nimanka furay oo wiilka iyo sadoga jannatul firdaws Allah geeyo sheekha uu meel adag wallahi furiin janna lagu galiya soo baxayde ya meesha waxa jooga ma taqaana waa furiin janna lagu galiyo hadii aad imika gabadh furto waa in lagu duceeyaa bismillah lagu dhaaf jannat firdaws Allah ku geeyo
sababtu waxay tahay dadkan in ay reaction ka bixiyaan fuse ay ka sameeyaan wixii ay shacabta ka dhigaan laakiin waxaas hees ma ahan riwaayad ma ahan film ma waxaad ka hadlaysaan waa nin sheekh ah ummadiisana diinta islaamka gaarsiinayay waxyaabaha saxda u sheegay waxa qaldan ka leexinayay marka idinkana inaad qaladkii aad ummadda qalad af u gelisaan ma ahan haddii idinka aad xumaanteen macnaha waxyaaba laga hadlayo qaar kamid ah idin quseeyaan ma ahan ummadda kale inaad sii qaladaan kulay ama ka helay naaga ma naaga is cadeeyay sheekh hadda ku xidhnaa xagdaadi kalar ka marsaday naagaha is cadeeyay naagaha timaha kala ku daray naagaha isturqaya naagaha bala isilka feerfeeraya naagaha balaayada samaynaya naagaha madowga marsanaya naagaha hoogay halaagu ku dhacay oo noobi inay naaga yihiin ma dhadhiga ay ka dhumay wax la ogyahay waa marka idinka hadda marka meesha wax ka dhahdo naagaha intaas oo dhan sameeya oo timaha ku daraan ha waliba wuxuu sii oo fanaxda samaystaan ma naagaha idinka dhuma sii raacinayo waliba naago baa idinku dhacay nacda bes aad raadinaysaan butaagaya sheekh caadi buu guuriyaa rag wuxuu leeyahay nac bes aad idinka lum aniga laba madax ka dhaha raggan in iyaga qaarkood ama midkood uu is cadeeyay ama ha in iyagas cadeeyeen ama wax limada ay sameeyeen ama wax is cadeey ay saaxiib leeyihiin inta un bay noqon kartaa sababtoo qof wax ka maxanaajinaya naag isduraysa naag is cadeynaysa waad naag moodaysaa soomaaliduna waxay taagan doqon iyo habeen baa madow ma dhadigow ayna ka dhuma dhadigow carrado buuxa ah ceebooni dhadigow ma fahmaysaa maxaa dhadiga dhadigu magaalada buuxa ah ceeboobina sheekh ana haldan uga shaqeeyay big bro waxa weeyaan xabad is cadaysay baa waxoogaa niyo tan waa howlin marka sababtoo ah marka wax sheegaysid ama horta wax reaction aad ka bixinaysid qofku waxa uu yahay ama wuxuusan ahayn inaad ka sheegta maaha heer waxay ka gaartay dadkan sheekha aflagaada u geystaan maxaan ku aflagaadayn wadaadkaas muxaadaro jeediyey dadoo la hadlay diinuu gudbiyey ma xabad cadow shaaftu qabat ama shaaftu ku qabatay inaad dhahdid inaa intaas oo aflagaada u geystid waa horta wax aada loo qurux badan yahay ina ma ahan in intaas loo geysan kara qofka hadduu wax qalad ku hadlo waa gooni laakiin sheekh aad u jeedid waxa maxaa leeyahay oo aayadda af carabiga ama xadiiska af carabiga ku baxay waxa af carabiga uu sheegaya af soomaali uu sheegay bis ana ka carowtid intaas ma aha marka brother hadda adiga isboor qaaday ma hadda adiga wax kale iska dhigtay sheekha aflagaadayn please la ciyaarta ya la ciyaarta boqor sagaar qaldan ku qabad صح ya saasa uga shakisana because raadada dhan faasiyo oo jeeda dad ilaahay waxay ugu darsan yihiin guursada dad alla ya rasuul ay doonayaan guursada dad diintu ay ammaantay guursada dad nafya shaydaan iyo gaalo khilaafay guursada naagaha cas cadeeya naaga maahan kuwa ilmaha dhalaya oo guryaha jooga nimanka qabow naaga ma qabtiin kuwa ilmaha dhalay ee guryaha jooga ogow naaga ma qabtaan gabdho badan oo culimo is cadeeyeen idin siiyo naagaha ilmaha dhalaya waxa kaaga dana cadaabay ku jiraan way soo uraan baa la yidhi sax waaye jirkaada haddaa iska bedeshid waa soo uraysaa afar ilmaha saa wax arfaa iska dawad waa soo uraysaa wax cad waaye waxa la ogyahay waxaa isku cadaynaysaa uraaba sababtoo keemi ku jirto sheekh alga xabada wallahi naaga is cadeeya way soo uraan baa la yiri u taagay jirkooda iyo iga dhaw soo uraan u taagay okay maxaa kale sheekh bal arinta la socda inay soo uraan ina gubanaysa dabcan kama shidi karto ma booyaasaad ku diraa gabalabe ma booyaasa u qabanay dab ma shidi karto taagay ha dab ma shidi karto because dabkaas iyo bah kale SDda amal wax soo wali jir ma wax ka jira malaha dadka boqolkiiba 99 way is cadeeyaan saacad istawas ilaali baa islaha
حد مركا سو كده إسرائيل جري مع أفكار اللي كنت أخذ بلادة qofka mid cagata waxbay ku dartaa saasay tahay dab kula galaan caadi ma jirto samayna dab geli karin caadi way galaan istilaali baan islahaay inta haddii la gaaray waad go'onaya waad dhimatay haade naagta isxasayd oo leeda ilmaha ii daade war ilmaha ilaaha weliya wuxuu taagan yahay mataqaanaa sheekha naagtu hadday أوكي مركا أنت سووا دمانينا مهمة واحد هاد أنا dadkan qaladkooda tusno mar walbana waxaa ogaataa aniga hadda inta arkay TikTok dadka ka soo hadlay sheeqa oo sida qaldan u soo hadlay waxay ahaayeen gabdho wiliba ku iscadeeyay midabkooda bedelay dad kale way ka soo hadleen oo si qurux badan ugu soo hadlay sheeqa soo amaanay oo gabdho wiil soo jira labadan waa YouTuber Soomaaliya inta aan arkay oo si qaldan ugu soo hadlay sheeqa inta ka soo hadashay YouTuber dina wanaag ugu soo hadlay laakiin kuwa waxay noqdeen kuwa sida qaldan ugu soo hadlay malaha iyaga isfiiriyay waxa iyaga ay iska dhigeen ayuu sheer ka hadlay macnaha kadibna way gubteen inta soo ma ka dhigi karnaa waa maasantiin